kusoo dhawaada language and computer college Hargeysa waxayna la hadlay macallin Maxamed macallinka luqadda Faransiiska maanta waa axad waxa caadeyno ahayd inuu qaado une session en direct intaan guda gelin notre session warbixin hordhaca si caadeyno ahayd ardayda jecel dadka xiiseynaya barashada luqadda Faransiiska Ingiriisiga Carabiga Soomaaliga iyo IT-ga fadlan la soo xiriira language and computer college lambarada xagga sare iyo xagga hoose ku xusan intaa waxa dheer in language and computer college ugu balan qaadayo ardayda uu diyaariyay waxa la yiraahdo 10 day money back guarantee in 10 cisho ardaygu istijaabiyo inuu la qabsan karayo macallinkii iyo luqadda uu doortay in case hadduu idhaahdo matalan waa la qabsan kari waayey language and computer college waxay ugu balan qaadaysaa inuu lacagta isku diiwaangeliyay ay culiso muddada 10 cisho gudahood intaasi waa warbixin haddii maanta aanu soo noqono notre session fadlan dadka ku xiran page language and computer college ka soo qayb gala qof walba waxa ku joogo iyo jawaabta ha ku soo qoro xagga comment-ka hadii hore waxaanu qaadanay waxa la yiraahdo l'adjectif possessive hadda maanta waxaanu qaadan doonaa exercice ku saabsan les pronoms possessifs marka waa exercice furan qof walba uu isku dayaya jawaabta uu soo diraya hadii la rabo waxa waa tababar waa ciyaar aan luqadii aanu ka wada faa'iideysanayno hadii la rabo pronom possessive pronom waxa qofka ama qofka kala sheega ayaa pronom la yiraahdaa possessive waxa la yiraahdaa lahaanshaha ayaa la yiraahdaa possessive marka waxaan inoogu soo diyaariyay 9 jumladood ama 9 kelmadood oo lagu bedeli doono mid walba pronom possessive-ka ku habboon ayaa lagu bedeli doonaa inta xagga sare inoogu qod mid ka mid ah ayaa mid walba gelaya marka ka ku habboon ayaa la gelin doonaa haddii ilaahay raado ta inoogu horeysa waxa weeye ta chambre maqsinkaaga maxaa lagu bedeli karayaa ta chambre pronom possessive-ka sheegay lahaanshaha lagu bedeli karaya ta chambre waa kee ka soo dhex bula inoo soo qora comment-ka inoogu soo qora haddii la hado alizi على ثمانية ta chambre maxaa lagu bedelayaa un pronom possessif sheegaya lahaanshaha marka leedahay waa maqsinkaagii lahaanshaha ku bedeli karaysid kelmadda lahaanshaha sheegaysid ku bedeli karayso ee xagga ku jirtaa waa tee isku daya soo qora alizi xagga ka soo hadlaysaan iyo magaca iyo jawaabta isku soo dara haddii la rabo محمد كمال وعليكم السلام ولال يباح برغي السلام عليكم ولال ما شاء الله وحن شو قولي ممليار سودو ولال waxaan noqonaysaa in jawaabta xagga horeysa haddaan ay noo saxo la tienne bay noqonaysaa la
tienne la tienne taadi ta chambre maqsinkaagii la tienne taadi waxay markaa la tienne waxa lagu bedeli karayaa ta chambre waxa lagu bedeli karayaa la tienne xaggii kelmadii aad ka celin lahayd la tienne waa la isla garanaya marka ta chambre maqsinkaagii waa la isla garanaya marka saasoo kale loo baahayay inaad uga soo shaqaysaan talabaad mon cheval faraskaygi mon cheval صفراء mon cheval هل بدي كريا mon cheval mon cheval فرسكي مثلا فرسكي pronom possessif quoi bon ok mon cheval allez-y waxay noqonaysaa le mien kaygi mon cheval le mien kaygi le mien waa kaygi waa fars kaygi le mien c'est ça loo soo qoraya ok saddex leur valise shandadahoogii pronom possessifka ku habboon muxuu noqonaya leur valise leur valise هل هو بدل كريان جوابته احنا قلنا صح les leurs شدوق leur شدوق صح احنا قلنا صح les leurs marka loo qorayo esta waxa loogu darayaa mar walba saasaa ka qodo waa inay isla haadaan hadduu singulier yahay singulier waa noqdaa hadduu féminin yahay féminin waa noqotaa hadduu pluriel yahay waa inuu pluriel noqotaa mar walba il s'accorde ya pronom possessifku wuxuu la aqoqdayo la s'accordayaa ku bedelayo magacu kelmadu bedelayo siday tahay ayuu mar walba noqdaa hadday féminin ahayd féminin noqonaya hadduu masculin ahayd masculin bay noqonaysaa hadday pluriel noqonaysaa hadduu singulier yahay singulier bay noqonaysaa mar walba il faut garder ça en tête maxaa ku xiga sa carte kaarkiisi sa carte maxaa lagu bedeli karayaa comme pronom possessif ee lahaanshaha sheegaya allez-y isku soo daya
sa carte. حلو بدل كرايا. Allez-y. حنقول ça. La sienne ici. La. حنقول ça. La sienne ici. La sienne. La sienne. Ici on a ça. La sienne. Ok. Chan. Son ami. صاحبك. Son ami. صاحبك. Son ami. Pronom possessif. On peut peut-être écrire. Ok. Ça sont les choses. Allez-y. Son ami. Son ami. صاحبك. Son ami. Son ami, le sien. Qui صاحبك. Le sien. Le sien va le dire. صاحبك. Le sien. Ok. Les. Son sac. Chandadi ici. Son sac. Son sac. Son sac. Pronom possessif. Le groupe de l'écran. Ok. Son parent. Son sac. وحلوكم بدي لك رياح ده مسعنا le sien. Le sien. Le sien. Je te dis ici. Le sien, un sac ou un masculin. Un sac. Ok? Son journal. Tu vas être ici. Son journal. Tu vas être ici. كم حلو بدل الكريه. Son journal. Son journal. Journal ici, tu vas être ici. Tana, on a ça. Le sien, ici. Le sien. Là, votre adresse. Adresse kina. Votre adresse. Adresse kina. Car nous allons vous écrire comme pronom possessif A. Votre adresse.
adresse qui votre adresse. Adresse, c'est un nom féminin. On va mettre dédicace. Ça va le soir. Maintenant, prenons le groupe de l'écran. Votre adresse. Adresse en soi, c'est un mot féminin. Alors, ça, la vôtre. La vôtre. La vôtre. Il ne faut pas oublier, il est là, o. Accent circonflexe, il ne faut pas l'oublier. Ok? Mes livres. Bougakteri. Mes livres. Bougakteri. Quel est le pronom possessif? Et peut-être les carrières. Mes livres. Est-ce que d'ailleurs? Mes livres. Bougakteri. Il ne faut pas oublier que mes livres, c'est au pluriel. Marca, ça s'accorde. Pronom possessif que peut donner dans la, ou une notion en ordre au pluriel. Il ne faut pas oublier ça. Tu vois, tu as ça? Les miens. Les miens. Les miens. Kouégi. Bougakteri, Kouégi. Marca, mes livres, on va se dire ça? Les miens, Kouégi. Et ça un petit exercice, nous coûtons les pronoms possessifs. هذه معناها كلمة لها المر يتم المطلب ta chambre مغسل وحطوا بدل كذا la tienne mon cheval فرس كيدي le mien يحطوا بدل كذا leur valise شدودوغي وحطوا بدل كذا les leurs شدودوغي sa carte ici وحطوا بدل la sienne son ami صاحبي وحطوا بدل le sien son sac, je te dis ici, le tien. Son journal, tu vas être ici, le tien. C'est votre adresse. Adresse qui dit, la vôtre. C'est mes livres. Les miennes. Et un petit exercice, les pronoms possessifs. حدا كلا إنتن 10 كلا إسبوعين هنا ومعلم محمد ونله دمانتين. À très bientôt.